ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee dalkeena Soomaaliyeed ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa waxa ay ka dhex bilaabeen howlgallo ay kaga hortagayaan xiisado u dhaxeeya dadka degan deegaanada Midxayre iyo Bangeele kuwaasi oo wada daaqa xoolaha iyo dadka reer guuraaga ah xiisad ka dhalatay ay ka jirtay halkaasi maalmihii la soo dhaafay. taliyaha ciidanka NISA ee deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Korneyl Cali Cilmi Ilkacase ayaa geeyay ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed deegaanadaasi kuwa oo xoojiyay amniga isla markaana diyaar u ah waqtigan inay xaliyaan khilaafka dhaliyay xiisada u dhaxaysa beeraha. ciidamada oo dhowrkii casho ee la soo dhaafay halkaasi ka waday howlgallo isla markaana u joogay xasilinta iyo amniga ayaa taliyaha ciidamada NISA Korneyl Ilkacase oo la hadlayay ciidamada xasilinta u jooga aagaasi ayaa sheegay inuu uga mahadcelinayo habka ay uga hortageen isku dhaca beeraha isagoo sheegay ciidanku inay diyaar u yihiin xoojinta amniga. meeshaan aan joogno waxa weeye deegaanka loo yaqaano Tawacdila waxay u dhaxaysaa Bangeele iyo Midxayley. ciidamada nabad sugidda qaranka waxay ilaalinayeen labada beelood oo Midxayley iyo Bangeele ka xigo oo si qalada isku dhacay. waa dad Soomaaliyeed waa dad walaalaha waa dad wada dhashay أكثر من عظمه بنان كانوا جدي جوان وحيكون علينا يعني لو بيلود أو سو أي عمارات كده شفتوا حتى إلى تدريس حقوق المدني وحتى تحت العظمه كانت كرهان غير الكنيسة وقول قلا موضوع أنا واحد ديار النهاي نفي مال بيننا كوب حنا عظمه قرن ديار هنا كالعليان لو بيلود بيشي هذا حد جزء سبعين وحرنا إن الله حسابتنا dadka shacabka hubka watana waxaan sheegaynaa in hubka iska dhigaan ciidamaduna inay diyaar u yihiin inay la xisaabtamaan qofkii shacabka oo hubku helaan iyo kuwada qas deegaanka sameeynayo waxaan ugu baaqaynaa hubka inay dhigtaan guryahooda qofkii hub lagu arkana waxa way ciidamadu waxay amrayeen inay talaabo sharciya ka qaadaan oo maasantii ciidanka nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo horey ugu guuleysay xasilinta amniga degmada Caabudwaaq ayaa deegaanada hoos yimaada degmada waxa ay waqtigan ka wadaan howlgallo la xiriira xasilinta amniga iyo nabadeynta beeraha. Cabdikariin Axmed Burhan, raadiyaha TV-ga qaranka, Caabudwaaq.